qodob kan cadaaladda wax aad iyo aad u weyn weeye shirarka kuma badni laakiin markii la cadaaladda laga hadlaya ayaan soo ajiibay runtii cadaaladdu oo waxay ku taagan yihiin macnaa muhiimatul cadaalati fil islaam ugu horeyn cadaaladdu miisaanka ay ku leedahay islaamka dhexdiisa oo waxay ku taagan yihiin cirka iyo dhulku cadaaladdu waa wuxuu ilaahay u soo diray rasuulada kutubtana u soo dejiyay laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist rasuulada waxaan u soo diray buu ilaahay kutubtana u soo dejiyay si dadku cadaaladda u qaataan waa muhiimadii ay u yimaadeen rasuuladu cadaaladdu faa'iidooyinka ay leedahay aad bay u badan yihiin waxaa kow ka ah nabadgelyadu inay timaado inta dulmi jiro nabadgelya iman mayso aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun dadka dulmiga iska daaya baa nabadgelye labay tilmaamaysaa aayaddu iyo hanuunba waayo qof wax tawday ayuunbaa qarxaya dabeedna dal iyo dadba burburin doona sidaynu marar badan aragnay cadaaladdu waa xabagta isu haysaa dowladda iyo shacabka ama mujtamacaadka lianna waxay abuurtaa waxa loo yaqaano hiqada ama kalsoonida qofku hadduu saluug la yimaado oo uu wax tawdo macnaha wax tabanayo kalsoonidii baa lumaysa faa'iidooyinka cadaaladdu leedahay waxaa ka mid a jacaylka ka dhexeeya madaxda iyo shacabka ama bulshada dhexdeeda waxay isweydiin le muhiimaddeeda haddaynu soo dhaafno yaa loo cadaalad samaynayaa qofku naftiisuu cadaalad samaynayaa cid loo cadaalad sameeyana ilaahay baa kow ka ah ina shirka la dulmun cadiim in ilaahay xaqiisa laga qaado oo la caabudi waayo waa cadaalad darrada koobaad waxaa loo cadaalad samaynayaa labada loo garsoorayo mujtamaca cadaaladda waxaa laga rabaa kow waalidka waxaa la carruurtiisa u cadaalad sameeyo waxaa laga rabaa zawjka inuu xaaskiisa iyo xaasaskiisa u cadaalad sameeyo waxaa laga rabaa mucallimka inuu ardaydiisa u cadaalad sameeyo waxaa laga rabaa mujtamac oo dhan xata alqowl hadalkiina ha ahaato ilaahay baa wuxu uhi waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba haddaa hadal odhanaysaan ha iska ridin hadalku yuu iska dhicin laakiin cadaaladdiisa ka fiirso cadaaladda waxaa laga rabaayo ugu weyn dadka mudan ee hogaaminta ummadda ah ama culimo ha ahaadeen ama madax dhaqameed ha ahaadeen ama madaxda siyaasadda iyo garsoorka ha ahaadeen waana halka ay u dhimato had iyo jeer leanna waxaa la yidhahdaa annaasu calaa diini muluukihim dadku waxay ku socdaan diinta madaxdooda kolba siday yihiin bay u dhaqmaan marka cidda ugu muhiimsan ee cadaaladda laga rabo waa mas-uuliyiinta ummadda iyo hogaamintooda iyo dadka acyaanta ah haddaynu intaa kaga soo gudubno cabasho badani way jirtaa inagoo qura maaha soomaalidu meelay joogaanba ama caalamkaba cabashada caad bay u badan tahay cadaalad darradu cudurkaasi wuu jiraa lama dafiri karayo siyaabaheebaa loo toosinaya waan soo gaagaabinayaa anigu aragtidayda ilaa 5 arrimood baa loo toosin karaa raqamka koowaad horta waa in la helaa qof wanaagsan iyo qaanuun wanaagsan haddii aan la helin qaanuun wanaagsan dee cadaalad darradii way jiraysa qaanuunka u wanaagsanina waa ka ilaahay subxaana wa tacaala waa diintaa samaawiga ah iyo nidaamka shareecada iyo wixii laga dheego dad muslimiina baynu nahay ummadaha kalen islaamka ahayn lama mid yihin innagu ilaahay baynu ka tala qaadanaa cidda ugu sarraysa ee laga tala qaadanayana waa ilaahay subxaana wa tacaala isagaa madaxda ka sarreeya isagii qur-aanka uu noo soo dejiyey iyo xadiidka nebiga isagaa ka sarreeya shacabka markaa qaanuunka wanaagsani waa kow wixii aynu fulin karnana ilaahay wuu inagula xisaabtamaya ee hogaaminta iyo madaxda iyo shacabku ay fulin karaan wixii aynaan fulin karayna ilaahayna weydiin maayo oo ilaahay wuxuu uhi fattaqullaha ma stadactum inta karaysaan ilaahay ka cabsada itaal darro lagula xisaabtami maayo waxa hakrashada lagula xisaabtamaya marka qaanuunku waa inuu wanaagsan yahay shareecada ayaa taa halka aan u qaadanaya waa qodobka koobaad